ilaa hadda Israel waxa ay soo celisay oo maxaabiis ahaan u fasaxday 100 meyd oo ka mid ah Falastiiniyiinta ay qabteen intii uu socday dagaalkii 2 sano ee maalmo ka hor xabad joojintiisa laga heshiiyay. Warbixin shabakadda Al Jazeera ka qortay ciqaabta la marsiiyay maxaabiistan ka hor inta aysan tacadiyada jireed ee lagula kacay u geeriyoon ayaa warisay in meydadka qasal loo soo daabulay kadib xabad joojinta iyagoo magac la'aan ah, taas beddelkeedana lambaro lagu calaamadiyay, taasoo sababtay in qoysaska ay ka soo jeedaan ku jahwareeraan kala garashada wejiyadooda. Xogtan ayaa sheegtay in meydadkan ay weli korkooda ku yaalaan raadadka jirdilkii sababay inay geeriyoodaan, qaarkoodna ay weli ku xirnaayeen katiinadihii gacmaha looga xiray iyo dharkii indhaha looga daboolay. Si daran ayaa loo jirdilay ka hor inta aysan geeriyoon, ama si kale haddaan u dhigno ciqaabta jireed ee la marsiiyey ayaa lagu kharajiyey sida warbixintu tiri. Marka laga yimaado haraha jirkooda jirdilku uga tegay, waxaa toorjarka lagu sameeyey dadkan sidoo kale xaqiijiyey maxaabiistii Falastiiniyiinta ahayd ee la xirnaa ee iyagu badbaaday. Israel waxay weligeed bacaan ku ahayd inay xabsiyada ku ciqaabto Falastiiniyiinta, taasi wax cusub ma ahayn. Ha yeeshee in tiro intaa leeg jirdil uun lagu kharajiyo ayaa ahayd mid aan horay u dhicin, taa oo qayb ka noqon karta dembiyada dagaal ee lagu maxkamadeynayo madaxda Israel. Ururka Qaramada Midoobay ayaa horay u sheegay in Falastiiniyiin gaaraya 75 xabsiyada Israel lagu kharajiyay bilowgii dagaalkaba. Dhakhaatiirta baaray jirka maxaabiistani waxa ay tabiyeen xogo naxdin leh oo tusay ciqaabta ay mareen ka hor inta aysan dhiman. Waxay dhaheen qaybtood waxaa maqnaa jirka qayb ahaan ilkaha iyo bishimaha, taasoo tustay arxan-darrada ay mareen ka hor geeridooda. Israel waxay docdeeda ku dooday inay iskood isaga dhinteen maxaabiistani. Ha yeeshee dhakhaatiirta Falastiin oo uu ka mid yahay Dr. Munir Al-Burash ayaa laga soo xigtay in dadkan loo ciqaabay si aadanimada ka baxsan, isla goortaana jirdilka uun lagu laayay. Qayb ahaan saraakiisha Israel ayaa warbaahinta marar badan ka difaacay dhibaatada xabsiyada loogu geystay maxaabiista Falastiin, midda oo tusaysa in si ula kaca loo kharajiyay maxaabiista. Samex Hamad oo ka mid ah guddiga maxaabiista meydka ah kala wareegay Israel ayaa laga soo xigtay in qayb ahaan meydadka ay weli surka uga xirnaayeen roob ama xargihii lagu kharajiyay ka hor geeridooda. Israel waxa ay sii daysay guud ahaan 2,000 ee maxbuus ee Falastiiniyiinta ahaa ee ay qabteen inta dagaalku socday, kuwaasoo dhibaatada jireed ee loo geystay sababtay in intooda badan markii lala kala wareegay hore cisbitaalada laga geeyey, midaasoo muujisay ciqaabta xadbeelka ah ee ay mareen muddadii 2 sano ahayd ee ay ku jireen gacanta Israel. Xitaa hay'ad xuquuqda aadanaha u dooda oo Israel laga leeyahay, taa oo lagu magacaabo B'Tselem Islam, ayaa ugu yeertay xabsiyada Israel baro ciqaabeedyo loo diyaariyey si aadanaha loogu cadaabo. Waxa ay tilmaameen in xabsiyadan dadka loogu ciqaabo jir ahaan, maskax ahaan, kufsi loogu geysto, cuntada laga ilaaliyo, karaamada shakhsiyadeed ee qofkana lagu dilo. Mid naadir ah ayaase ah inay xabsiyadan ka soo nabad noqdeen 2,000 oo maxaabiis Falastiiniyiin ah, kuwa oo muddo 2 sano ah maray una dulqaatay ciqaabtan la wariyey inay aadanimada ka fog tahay.